shirkan oo looga hadlayay habka iyo hanaanka lagu maamuli lahaa isticmaalka biyaha Jubbaland ayaa Wasaaradda Macdanta, Tamarta iyo Biyaha Jubbaland ku qabatay magaalada Kismaayo. Shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaanada u qaabilsan baarlamaanka Jubbaland arrimaha tamarta iyo macdanta. Waxa kale oo goobjoog ka ahaa ururada bulshada rayidka, mas'uuliyiinta shirkadaha biyaha ee magaalada Kismaayo iyo madax ka socotay maamulka gobolka Gado. Shirka ayaa waxaa daahfuray agaasimaha guud ee Wasaaradda Macdanta, Tamarta iyo Biyaha Jubbaland Mudane Nuur Shaafi Cabdullaahi, isagoona sheegay in ay horumar ballaaran u tahay Jubbaland in maanta laga arinsado hanaanka ugu fudud ee biyaha lagu heli karo. Hawshan waxay ku socotaa marka si aad iyo aad u fiican oo waxa inala joogo shirkan hadda nagala muuqdo aad ka arki doontaan mas'uuliyiin kale oo ayagana la taliyaal leh oo inoo sameynaya sharciga biyaha ayagana sidoo kale waa diyaar marka documentskaas dhamaan ayaan waxaan rabnaa inaan horta aan sal ahaan aan u dhigno oo aan u sal dhigno kadibna aan golaha wasiirada iyo baarlamaanka aan hormarino haddii Ilaahay yiraahdo aan sida aan ku socodsino shirkan maanta ee gooniga ah ee aan maanta u fadhino oo siyaasadda biyaha sidaad ku arkaysaan ee loogu talagalay stakeholders waxa la dhamaan dadka shaqada ku leh ee hawshan wada dhamaan dadka shaqada ku leh ee hawshan wada waxa kamid ah xildhibaanada dadka matalaya gobolada degmooyinka ganacsatada ururada haweenka dhalinyarada aqoon-yahanada dhamaan dadkaas kamid ah dadkaas shirkan loogu talagalay gudoomiyaha gobolka Gado Maxamed oo isna madasha ka hadlay ayaa ku dheeraaday diyaarinta siyaasadda biyaha ee Jubbaland iyo ahmiyadda ay leedahay wasaaradaha jira waxaan isleeyahay wasaaradda noogu muhiimsan dhinaca nolosha dadka bini'aadanka sababtoo ah labada shay ee maanta ugu muhiimsan waxaan isleeyahay waa biyaha iyo tamarta Soomaaliya. xildhibaan Bile Cabdulle Cabdi oo kamid ahaa xubnihii baarlamaanka u matalayay shirka ayaa ka sheekeeyay muhiimadda in la helo biyo ku filan degmooyinka iyo deegaanada Jubbaland. qofka bini'aadanka markuu hore wuxuu u baahan yahay hadduu nool yahay amniga u baahan yahay markuu amni helo wuxuu u baahdaa wuxuu cabo iyo wuxuu cuno wuxuu ku xijiyaa meel sax ugaas Cabdiraxmaan ugaas Khaliif iyo Saadiye Maxamed Sambulle oo kamid ahaa dadkii ka qayb galayay shirka ayaa ka hadlay waxyaabihii la iskula soo qaaday inta uu socday kulanka. waxaan rabnaa biyo nadiif ah oo ku fadhiya siyaasad jaango'on oo nin walba uu helo xaqiisa iyo suuq qancinaha markaas oo looga hadlayay qaybaha biyaha ee magaalada Kismaayo aan soo dhaweynayna shirkaas oo socon doona muddo 3 bari ah. shirkan oo socon doona muddo 3 bari ah ayaa inta uu socdo dhammaan ka soo qayb galayaasha waxay aragtiyo kala duwan ku biirin doonaan qabyo qoraalka siyaasadda lagu maamuli lahaa hanaanka biyaha dowlad goboleedka Jubbaland taasi oo marka la dhameystiro la horgeyn doono golaha wasiirada Jubbaland. Wasaaradda Macdanta, Tamarta Biyaha Jubbaland ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waday dadaalo ay ku dardargelinayso howlo maalmeedka shaqooyinka Wasaaradda Macdanta, Tamarta. Foos Cali Cabdiraxmaan, Jubbaland TV, Kismaayo.